astaamaha wan wanaagsan ee saalixiinta waxay gaareen darajo waxay gaareen markii ilaahay uu jeclaaday muxuu ku jeclaaday midabkooda kuma jeclaanin maalkooda kuma jeclaanin qabiilkooda kuma jeclaanin shay oo adduunyada ah ama cilmi la bartay ama kada kuma jeclaanin wuxuu ku jeclaaday iimaanka iyo camalka saalixa ay ku dadaaleen darajada ilaahay agtiisa ay ka gaareen dadkaasi qaarkood waxay gaareen in allahu rabbul caalamiin oo iyaga dartood u caroodo iyaga dartoodna uu raalli noqdo nin hadday raalli ka noqdaan ilaahay raalli buu ninkaas ka noqonaya hadday ninu caroodaanna ilahay baa u caroonaya biduuni sabab way dhacday waad maqasheen baan u malaynayaa saxaabadii bilaal radia allahu canhu iyo suhayb iyo salmaan saddexdaas saxaabi waxay ahaayeen saddex saxaabi oo mujtamacii maka ama madiina aan qabiil ku lahayn oo aan qolo ku lahayn waxay ahaayeen dad bilaalna wuxuu ka dhashay xabasha ayuu ka dhashay salmaan farisi buu ahaa suhaybna ruum buu ahaa dad waxay ahaayeen addoonnimo la addoonsado soo maray mujtamac ahaan marka la yidhaha dadka ugu qiimo liita bay ahaayeen walaakiin ilaahay bay rumeeyeen nabigiisii bay rumeeyeen calayhi salaatu wasalaam diintii bay u dadaaleen naftoodii bay u hureen allah rabbulcaalamiina ayaa jeclaaday darajada ay gaareen baa nooga sheekayey nabigu calayhi salaatu wasalaam berigii islaamku uu guulaystay oo xoogaystay oo heshiis baa waxaa la gaaray gaaladii iyo muslimiinta dhexdooda oo hudna la sameeyey waxaa la 10 sano hal isdaayo aan la isdagaalin heshiiska nabiga ayaa u waqacay oo saxiixay ogolaaday kufaaru quraysh qoladii quraysh ee nabiga qabiilkiisa ahayd gaaladoodii waxay qaarkood iska iman jireen marka madiina ileen hudna dhacday dagaal ma jiro abu sufyaan ninkii la oran jiray ee hogaamiyihii ugu weynaa gaalada ayaa madiina yimid iyadoo sulxigaas iyo heshiiskaasi uu jiro madiinuu soo galay madiina hadee waana gabadhu asagu dhalay oo nabigu qabayna waa jiray calayhi salaatu wasalaam waana iska yimid heshiiskaasna waa laga faa'iidaystay markii ay arkeen saddexdan ninoo wada taagan bilaal iyo suhayb iyo salmaan baa arkay abu sufyaan oo iska socda madiina dhexdeeda oo acdaa ilaahi ah oo dagaalkii uxud iyo wixii ka horreeyey iyo dagaaladii oo dhan ninkii balada oo dhan waday ahaa bay waxay arkeen isagoo madiina iska dhex yalaafyoonay oo iska socda xogay waxaa qaaday xamiyat alislaam kelimad bay dhaheen markii run ahaan la yidhaha kelimadaasi kuma habboona waqtiga heshiiska qaar kale waxay ku dhaheen maa akhadat suyuufu llahi min cunuqi caduwi illaahi ma akhadaha suyuuftii ilaahay ma aynan ka marin meeshii laga rabay inay qoorta ninkan cadowgan ilaahay ay ka marto ninkanaaba weli nool miya oo weliba madiina dhex maraya alla ilaahay suyuuftii ilaahay kaanaha xaqeedii ma ayna gudan ninkaan kamay gudan waa kelima markii run ahaan la yidhaah fii hada almaqaam maqaam heshiis uu jiro oo ma garanaysaa sayiduna abu bakrin asidiiq radia allahu canhu ayaa qowlkoodii maqlay abu bakrin asidiiq radia allahu canhu waa ka wada fadli badan yahay asxaabta oo dhan waa khayru nnaasi bacda alambiyaa radia allahu canhu waardaa meeshaana qowlkaasi inuuna ku habboonayn buu dareemay iyagii buu canaantay oo wuxuu yidhi ataquuluuna hada lishaykhi qurayshin wa sayidihim quraysh sheekheedii kabiirkii ugu weynaa ee sayidkooda ahaa miyaad kelimadda xun ku odhanaysaan yani hadal noocaas oo adag ayuu ku yidhi iyagii intaa ku mudaynine nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay isagoo u dacwoonayo oo bimacnaa inuu nebiguna ka nahiyo u jeeda nebigu u sheegay wuxuu yidhi nimankaas sidaasay abu sufyaan ku dhaheen meeshuu wax kale ka filaayay arrin yaablaa ka hor timid abu bakr radia allahu canhu abu bakr nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala liabi bakrin wuxuu ku yidhi aqdabtahum nimankaa iyagaa miyaad ka cadhaysiisay abu bakarow isagoon jawaabin ayuu nebigu hadalkii sii wato wuxuu yidhi lain aqdabtahum
laqad aghdabta rabbak haddaad ka cadhaysiisay nimankaas ilaahay baad ka cadhaysiisay ogow Abu Bakr wuu soo cararay iyagii xaggoodii buu ku soo cararay yaa ikhwataahu walaaladayo aghdabtukum miyaan idinka cadhaysiiyey maya dhehen yakfiru allahu laka yaa ukhay allah kuu dembi dhaaf allah kuu dembi dhaaf saasay ugu jawaabeen nabiga sala allahu calayhi wasalam xaqiiquu sheegay xaqiiqadaasi waa maxay nimankani waxay gaadheen darajo ah hadda dadka shuraaxda qaarkood waxay ku leeyihiin fi lxaqiiqa marka la yidhaah yani Abu Bakr kelimadda uu ku canaantay huwa muxiq lianna sulxi baa jira heshiis baa jira mar hadduu heshiis jirana kelimaadka dagaal iyo dhibaato keeni kara lama rabo muslimiintuna way qaateen heshiiska laakiin xaqiiqo kale jirto waa maxay ilaahay maba ogolas nimankaas in laga cadhaysiiyo biayi sabab min alasbaab hadday cadhoodaan ilahay baa cadhoonaya hadday raalli noqdaanna ilaahay baa raalli noqonaya riwaayo kalea ku timid libacdihim Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu aw Yasir radiyallahu anhu inna allaha la yaghdabu lighadabihi wa yarda liridah wuxuu raalli ka noqdaan ilaahay baa raalli ka noqon wuxuu cadhoodaana ilaahay baa u cadhoonaya waa daraja aan laga tasawuraynin insaan daciifaho miskiina inuu gaaro